Dalka Indonesia waxa uu bedeli rabaa caasimadiisa Jakarta isagoo u bedelaya magaalada loo yaqaan Borneo sanadka marka uu noqdo 2024. Shekede Bisto ahna siyaasi u dhashay dalka Koonfur Afrika waxa uu aad u jeclaa gaarigiisa ilaa markii dambe uu codsaday in la duugo marka uu dhinto. Kani waa koob loogu talagalay dadka leh shaarbada inay ku cabaan shaaha. Ninkani waa nin ku tartama dabaasha ee ciyaaraha Olombikada sanadka markuu uu ahaa 1976 waxa uu badda ka soo badbaadiyay 20 qof. Waxaa soo gaaray dhaawacyo aad u fara badan midaas oo keentay inuu ka fadhiisto ciyaaraha Olombikada. Tuulada Al Hutayb ee ku taala dalka Yemen waa tuulo aysan ka da'in wax roob ah maxaa yeelay waxay ka sareysaa daruuraha, halka tuulada loo yaqaan Musinram ee ku taala dalka Hindiya ee tahay tuulada ugu roobka badan adduunka. Kani waa sawirka dayax-gacmeed lagu arkay isagoo ku dul wareegaya dhulka, lama yaqaan ciddii dirtay iyo ciddii samaysayba. Waxaa lagu magacaabaa Black Knight Satellite. Shimbirta yar ee ku dhex sawiran loogada Twitter-ka waxaa lagu magacaabaa Larry Bird. Qaar ka mid ah kaniinada waxa ay leeyihiin xariiqad yar taas oo loogu talagalay in qofka uu si fudud u ku jibiyo kaniiniga, waxaana xariiqadan loo sameeyaa kaliya kaniinada ay saameyntoodu aad u sareyso. Xariiqadani waxaa lagu magacaabaa Deposit Line. Ciyaaryahankani waxa uu abaalmarin u helay 5 GB oo data internet ah maadaama uu noqday ciyaaryahanka ugu fiican kulan uu markaas ciyaarayay. Waxa uu ka soo jeedaa dalka South Africa. Dalka Denmark waa dalka ay joogaan doofaar ka badan dadka meesha ku nool. Boqolkii qof waxaa ku soo aadaysa 215 xabba oo doofaar ah. Nin lagu sheegay magaciisa ayaa afduubtay wiil uu dhalay mid ka mid ah ragga ugu taajirsan qaaradda Aasiya. Lacag gaaraysa ilaa $162 milyan ayuu ka qaatay isagoo wiilkiisa dib ugu soo celiyay. Kadibna waa uu soo wacay waxa uuna weydiiyey qaabka ugu fiican ee uu maalgashan lahaa lacagta. Ereyga hello waxa uu soo bilowday kadib markii telefoonada la soo saaray. Alexander Graham Bell ayaa keenay ereyga ahoy si ay dadka isku salaamaan markay taleefanka ku wada hadlayaan, balse Thomas Edison ayaa ku dhahay ereyga hello ayaa ka fiican. Sidaas ayuu ku soo bilowday ereygan. Boqortooyada Sacuudiga Carabiga waa waddanka ugu weyn ee aan lahayn wax webi ah.